cutubyo ka tirsan ciidanka difaaca dawladda Puntland oo muddo ku dhow 4 bilood tababar uga socda xarunta ciidanka militariga Kutaniya Afraad oo ku tala duleedka magaalada Garowe ayaa maanta loo soo gabagabeeyay munaasabad shahaadooyin cadeynaya inay dhameysteen tababarka ciidankan oo maanta ka dhacday xarunta Kutaniya Afraad ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Froole ku-xigeenkiisa General Cabdisamed Cali Shire taliyaha ciidanka militariga Puntland sareeya Gaasiciid Maxamed Xirsi ciidankan tababarka dhameystay ayaa soo bandhigay gaada ka ciyaar iyo qaar kamid ah dowladtus ku wajahan casharada ay qaateen intii ay tababarka ku jireen asida la sheegay ciidanka ayaa ka qayb qaadanaya adkeynta xuduudaha Puntland iyo waliba ilaalinta amniga dalka waxaana tababarkan bixinaya saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda kuwaas oo siiya casharo ay ku adeehan yihiin xirfado dagaal iyo waliba iska difaacitaanka weerarka soo lagu soo qaado dalka sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa munaasabadii shahaadooyinka lagu siinay ciidanka militariga cusub ee tababarka qaatay qusulka Itoobiya fadhiya Puntland iyo waliba mas'uuliyiin kale shahaadooyin ayaa la guddoonsiiyay dhammaan ciidanka tababarka loo xiray waana dufcadii labaad oo tababarkani qaata ugu horeyntii taliyaha ciidanka militariga Puntland sareeya Gaasiciid Maxamed Xirsi ayaa khudbad ka hadlaysa qaabka ay tababarka u qaataan ciidankan goobta ka soo jeediyay waxaana dhanka kale kula dardaarmay ciidanka inay muujiyaan wadaniyad ayna difaacaan sharafta dalka iyo dadka intaba wuxuuna sidoo kale Siciideer uu sheegay inay yihiin ciidankani dufcadii labaad oo tababarkani dhameysata xafladda tanqiimaha iyo qaadaha leh oo ah xiritaankii dufcadii labaad ee tababarka ka baxday ee sanadkan tababarkaas oo soconayay muddo 4 bilood oo wax yar dhiman si sharaf lana dadkii tababarka qaatay oo hadda hortaada fadhiya si wadaninimo ah si dadaal ah si xiskalnimo ah si dhiirigelin ku jirto si uu fakarida cadow ka dameeyo oo buri cadowga dalka inay buqunta iyo wadnaha gooyaan loogu talagalay ayaa loo qaatay tababarkaas macallimiintii tababarka wadayna si wadaniyada oo dadaala oo aan waxba aysan ka gadaal dhiganayn ayay u bixiyeen tababarkii barnaamijkii tababarka sidoo loogu talagalay ayaa loo bixiyay ka bacdina imtixaankiisa loo qaaday imtixaankiina inta hortaada fadhida ayaa ku guuleysatay waa jira dad ka soo bixi waayay oo markii horeba iska banjaray laakiin intii guuleysatay oo birta caalashatay anagu Soomaalida haldhig way noo tahay kuwa hortaada maanta fadhiya way madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Froole oo dhankiisa dardaaran iyo hadallo dhiirigelin u soo jeediyay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay qaabka wanaagsan oo ay tababarka u qaataan ciidankan cusub wuxuuna madaxweyne Froole arrinkaas ku ammaanay sareeya Gaasiciid Maxamed Xirsi oo u dhabar adeega inuu soo saaro ciidan cusub oo military iyo waliba qaabka tababar qaba waxaan mahad gaartaa uga soo jeedinayaa madaxda ciidanka daraawiishta ugu horeeya General sareeya Gaas Saciid Maxamed Xirsi iyo tababarayaasha ama ha ahaadeen kuwa Soomaaliyeed oo gaardiga iyo inuu ku soo hawlanaa intii hore aad jirjirsanaydeen ama ahaado kuwa dawladaha dariska walaalaheen inuu ka yimi oo gacanta ina siiyay dawladda Itoobiya oo maanta halkan jooga oo aad arkayseen sida dadaalku ku jiro iyo xasaskoodii iyo guryahoodii eheladoodii ka soo fogaa muddo dhan oo 2 dafcadood maanta halan ka saaray sida ay inii tababareen oo ay ahaayeen si maaragtay aad muddo inay inaga ka mid yihiin waxayna ahay tusaalahoodaas iyo dadaalkoodaas mid ku dayasho mudan weeye oo inaynu ku dayano aynu aragno sida ay dhibta inaga iyo dhulkoodii ka soo fogaaday ay noo tababarayaan oo waqtigoodii qaaliga ah inoo ku lumiyeen oo ay inoo ku dadaalayeen halka ciidan ka soo baxo dhismaha ciidan adduunka oo dhan waxa weeye dawladnimada tiirkeeda koowaad weeye sida tiirarka islaamka tiirka ugu horeeya waa shahaadada dawladnimada shahaadada ugu horeysa waxa weeye in ciidan jiro balka waran hadaan ciidan jirin seeban ahaan jirida ayna qabsan lahay waad garanaysaan markaynu burburay magaalada tan laftigeeda aan joogno
maalin walba wixii ka dhici jiray dadku islayn jiray qabiil la isu layn jiray odayaal oo la cuskan jiray oo la oran jiray oday hebelow isim hebelow maxaynu seenla odayaashu ha shireen oo qof wax soo qabta uusan jirin markii ciidankii Soomaalida uu burburay xeradaan ever noqotay hase yeeshee ilaahay xamdigiis dhibaato badan oo Soomaaliya ka dhacday in badan oo waxayna ka soo gaareen ama deegaamadii Soomaaliya inta Puntland ka shisheeyay Soomaaliya ayna ka soo gaareen ama tan laftigeeda dhowr jeer oo dhibaato ka dhacday ugu weynayd magaalada Gaalkacyo qabsadii la qabsaday oo la xasuuqay dadkii deganaa ama ay ka mid ahay dagaalo sokeeyo inaga dhaxdeena marar ka dhacay sidii kii itixaadka oo kale iyo mid kale oo isaguna khasaaro badan dhigay oo ka dhacay gobolka Bari isagana waxaan ilaahay inuu ka soo gudbiyay si nabadgelyo maantana waa ka soo kabanay waa inuu ka noolahay hase yeeshee cadowgu maanta ugu badan yahay maanta cadow shisheeye ka soo duulay baa ku jira waxaase asaas u ah cadow dalkeena gudihiisa ka dhashay oo dadkeena Soomaaliyeed laftigiisa ka dhashay oo aad ogtihiin inuu wadamo badan qabsaday gobollo badan qabsaday Soomaaliya kamid ah wali lagu hawlan yahay ciidamo shisheeye oo dawladda Itoobiya ciidamadu ay kamid yihiin oo si niyad sami ah oo dadaal iyadoo aan dawlad shisheeye wax siin qaramada midoob wax siin African Union wax siin ay gobollo badan ka saartay iyo kuwa Afrikaanka oo ka yimid Uganda iyo Burundi iyo kuwa Kenya oo iyaguna meeshii saldhigga weyneed oo ahayd gobolka Jubbada Hoose magaalada Kismaayo gaar ahaan oo dekada oo magaalada labaad oo koonfureed oo dakhliga ka soo gala dagaalka ay ku gali jireen in inta laga qabtay mahad waxa iska leh dawladahaas midowga Afrika dawladda Itoobiya Kenya Uganda Burundi oo dagaalkaas weyn oo dalka Soomaaliyeed laga xoreynayo cadowga argagixisada gacanta ka geystay ciidankani maanta la gudoonsiyay shahaadooyinka oo dhameysay tababarkii in muddo ugu socday xarada Kutaniya afraad ee magaalada Garowe ayaa waxay yihiin dufcadii labaad oo tababar caynkaana qaata waxaana lagu wadaa inay ka qayb qaataan adkeynta ammaanka iyo ilaalinta xuduudaha Puntland. Cali Cabdi Casiis warbaahinta dunida online magaalada Garowe.